asal ayaad si toos ah lagaga daawariyaa gaar ahaan page-ka Facebook-ga maalin wanaagsan marka hore maalin wanaagsan aad ku salaam maanta waa maalin weyn oo maalin taariikhiya oo maalin shacabka bulshada u mahad celinayaan madaxweynaha jamhuuriyadda kadib shalay markii uu ka codsaday baarlamaanka labada gole in maqaamka magaalada muqdisho ay ka geliyaan waxa ay loo taaraysiiyaan arrintaas ayaa isku abaabuleen waxaan leenahay madaxweyne mahadsanid oo go'aan jeesinimada ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir ayuu ahaa oo ila hadlayay telefishinka Universal Maxamed Cabdullaahi Tuulax gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda gobolka Banaadir oo isna ka mid ah mas'uuliyiinta gobolka Banaadir banaanbaxana ka soo qayb galaya markana ila jooga mudane Tuulax maalin wanaagsan bal banaanbaxan iyo shacabka maanta soo baxay muxuu yahay halkay aad u maasan tahay banaanbaxa ku saabsan yahay laga mahadceliyo jeedinta gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda maamulka gobolka Banaadir ayuu kaasi ahaa markana waxa ay jooga gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka Banaadir mudane Cumar oo isla soo gaaray banaanbaxa ka soconaya taalada dalka Daason lagaga hadlayo maqaamka magaalada Muqdisho laguna taageeray go'aanka madaxweynaha ee maqaamka Xamar gudoomiye soo ma sha Allah waa maasantahay waa dhawahay waxaan ka soo qayb galnay banaanbaxa waxaan soo gaarnay dadka annagoo maaragtay taageerayno codsigii madaxweynaha